En Bismillahirrahmanirrahim. Dhammaan wariyaasha idaacadaha sharafta badan ee halkan soo qayb galay waan salaamayaa. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan iyo geeska Afrika waan salaamayaa. Intaa markaa ka gudbo waxaan halkan maanta kasoo jeedin doonaa mowqifka jabhadda ee ku saabsan siyaasadda ay cusub ay kaga qaybgeli doonto siyaasadaha deegaanka. Si rasmi ah Jooxo waxay maanta si rasmi ah u cadeynaysaa inay noqon doonto xisbi siyaasi ah oo si nabadgelyo ah uga halgami doona sidii ummadda Soomaaliyeed ee dalkan ay ayahooda uga tashan lahayd iyadoo adeegsanaysa waddan nabadeed oo waafaqsan xeerarka caalamka iyo dastuurka Itoobiya, waxayna ka qaybgeli doontaa doorashooyinka 2020. doorashadaas waxay ku geli doontaa magaca ONLF, waxayna dowlad ku dhisi doontaa isbahaysiga xorta ee Soomaaliyeed oo afka qalaad u dhigma Free Somali Coalition. Isbahaysigaas wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan, iyadoo shirweyne la qaban doono sida ugu degdeg badan. Isbahaysigaas lagu dhisi doono. Isbahaysigaas waxaa looga mid noqon doonaa xisbiye diiwaan gashan oo doorashooyinka ka qaybgala, kuraasna ku guuleysta. waxaa kaloo u furan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan inay magaca ONLF ku biiraan si ay u helaan fursadaha ay danahooda ku ilaashan lahaayeen. ONLF haddii ay doorashada ku guuleysato waxay tixgelin gooni ah siin doontaa beelaha laga awoodda badan yahay oo fursad aan u helin inay xaqooda helaan ama si xaqdarro ah loo takooro. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay aaminsan tahay inkastoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ballan qaaday inuu furfuri doono siyaasadda Itoobiya oo kusoo dabaali doono nidaamka dimuqraadiga ah ee xorta ah oo dadka fursad u siinaya inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed si dimuqraadi ah, haddana weli waxaa muuqata in aan wax badan laga bedelin shuruucdii nidaamka hore ee caburin jiray nidaamka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda shacabku ay u leeyihiin inay doorasho xaqa ay helaan, isla markaana dadka mathalaya ay si cadaalad u doortaan. waxaa ka mid a waxyaabaha weli hadda Jooxo ay aragtay inuusan cadaalad ahayn, in shucuubtii cadaadiska ku dhacay ee la takooray ee dalka ka carartay ee jinsiyadaha kala qaadatay si ay isu badbaadeen noloshooda uu takoorayo nidaamka dimuqraadiga ee dalkan, taasna ay tahay mid aan waafaqsanayn shuruucda caalamka iyo sharciga iyo dastuurka Itoobiya u qoran ee qofka xuquuqdiisa siyaasadda siinaya dalkan u dhashay. marka nidaamka jinsiyadda sharciga ah Jooxo waxaa weeyaan way ka halgami doontaa sidii wax looga bedeli lahaa iyadoo kaashanaysa dhammaan shucuubta Itoobiya. sidoo kale waxaa la abuurayaa guddiyo qaran ee heer federaal ah sida kuwa doorashooyinka, kuwa xuduudaha iyo wax la mid ah, taasoo dadka Soomaaliyeed aan marnaba la tixgelinaynin oo xuquuqdooda ay ka maqan tahay oo ay dadku u sinaanin. taasna ma saamaxayso in si dimuqraadi ah waxaa Ingiriisku la yiraahdo playing dhul dadka u siman yihiin aan suurtagelinayn. marka arrintaa iyadana way ka dhiidhiyi doontaa sidii shacabka Soomaaliyeed xuquuqda ay ku leeyihiin nidaamka federaalka ah si buuxda loogu helo, oo xaqa ay ka tashiga waxaa asaas u ah in devolutionka ama ismaamulka Soomaalida la siiyey nidaamka federaaliga ah in dadka Soomaalida ay ula siman yihiin Itoobiyaanka intooda kale, laakiin xuquuq badan baa ka maqan. waxyaabaha ay jabhaddu ay ka howlgeli doonto sidii xuquuqda shacabka Soomaaliya loo soo dhicin lahaa, waliba si adag ay uga halgami doonto yaa ka mid ah. guud ahaan looma sinna nidaamka federaalka Itoobiya. dadka Soomaaliyeed waa shacabka saddexaad weeye, dhulka koowaadna way leeyihiin, haddana kama muuqdaan talada dalka Itoobiya la yiraahdo maanta wax xuquuq ay ku leeyihiin waa wax kooban weeye. marka siday xuquuq buuxda u heli lahayn oo ula silmi lahayn iyagoo kale waxay ka mid tahay ay ka tashiga shacabka ee dastuurkan Itoobiya lagu sheegay in dhammaan shucuubta u siman tahay. sidoo kale waxaa jira jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya iyadoo in muddo dheera deegaanka Soomaalidu dagaal ka socday, dagaalkaasoo ugu yaraan hadda kasoo kow dagaaladii ka horreeyey ilaa 60kii ilaa hadda socday 27 sano dagaal aad u ba'an oo dhibaato badan u geystay shacabka Soomaaliyeed, kaasoo xasiloonidii iyo horumarkii shacabka wax u dhimay.
يعني جبهة wadaniga xoreynta ogaadeen marka waxay ka howlgeli doontaa sidii shacabkan u heli lahaa xaqa uu leeyahay inuu hormaro inuu nabadgelyo helo inuu helo muxuu ahaa adeegyada bulshada adduunka yani dawladuhu ka filayaan inay si buuxda u helaan way ka howlgeli doontaa sida waxbarashada adeegyada asaasiga biyaha caafimaadka iyo inay ka xoroobaan gaajada iyo faqriga ayadoo shacabka Soomaaliya uusan la sinayn shucubta kale ismaamulada Ethiopia oo xuquuqdooda uusan u dhameyn waxay u howlgeli doontaa siday ay si buuxda u heli lahaa ismaamulka Soomaalida oo nidaamka federaalka Ethiopia maanta ka tirsan dhammaan xuquuqda shucubta kale Ethiopia ay leeyihiin qolada kale inay ka fadli badnaanin oo devolution buuxa macnaha ismaamul buuxa ay u helaan waxaa ka mid ah waxyaabaha xoogga saari doonto in shacabkan uu helo xuquuqaha ka maqan waxaa ka mid ah xuquuqda siyaasadeed dadkeenu ilaa hadda wali uma helin inay si xor ah u doortaan cid ay doonaan marka inay fikirkooda si xor ah u dhiibtaan inay si xor ah u doortaan cidda maamulaysa oo ayagu cid ay doorteen oo raalli ka yihiin ay maamusho in qof shakhsiga ah ee Soomaaliga uu xaq u leeyahay cod one man one vote oo si xaq ah codkiisa u dhiiban karo ayadoo cabsi ay ku jiraan ama xisbi si gooni ah dantiisa wata usan u caburinayn sidoo kale xisbiyada dalka ka jira waa inay noqdaan xisbiye u siman nidaamka dawliga ah xisbi walba dalka deegaankeena ka jira ama guud ahaan Ethiopia ka jira dawladdu iyo xisbigu waa inay kala baxsan yihiin oo xisbiga aan qofka Soomaaliga aan lagu qasbi karin xisbigiisa doonin si madax bannaan xisbigu rabo u gali karo qofka shaqaalaha aan xoog looga qaadi karin dhaqaale xisbiga marka dawladda hay noqdo ama xisbi kale oo tahdiid ku sameynaya marka qofka Soomaaliga inuu xor u yahay siyaasadiisa inuu si xor ah uga qayb galo doorashada soo socota iyo guud ahaan doorashooyinkaba dadka Soomaalida xor ay u noqdaan in si cadaalad ay ku dhisnaato nidaamka muxuu ahaa dawladda loo galay doorashada loo galay very transparent ahaato ayna ku dhisan tahay nidaam hal qof hal cod deegaanada Soomaaliya dhammaan ay u sinaadaan yani si cadaaladana tirakoob loo sameeyo guud ahaanna ay noqoto nidaam caadil oo dadku ay ku wada qancaan sidoo kale xagga amniga waxay ka shaqeyn doontaa sidii dadka Soomaaliya ay saameyn ugu yeelan lahaayeen siyaasadda federaalka xag amni xag dhaqaale xag maamul xag diblomaasi iyo xag ilaalinta xuquuqul insaanka waxaa kaloo ayadana jooxo ka howlgeli doontaa sidii tirakoob sax ah dalka Soomaaliya loogu sameyn lahaa oo dadka Soomaaliyeed tiro dhaba ay u heli lahaayeen oo ku salaysan deegaankooda iyo xaqiiqada dalkooda ka jirta sidoo kale arrimaha amniga jooxo waxay ka qayb geli doontaa horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida iyo xuquuqda shacabka waxay sal u ah amniga dalka jooxo marka waxay ka qaadan doontaa kaalin buuxda amniga dalka ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenna wuxuu ka mid noqon doonaa oo ka qayb geli doonaa ciidanka amniga dalka oo lala midayn doono ciidamada kale amniga ah kaasoo si transparent ah oo cad nidaamka u dhici doono waana la bilaabay sad la socotaan xariya ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta lagu xareeyay guddiyo wada jirana waa la sameeyey oo isku dhafan oo sidii ciidanka loogu midayn lahaa ciidanka amniga deegaanka si ay uga qayb qaataan amniga iyo xasilinta dalkooda una ilaaliyaan xuquuqdooda sugidda amnigu waxay sal u tahay xuquuqda siyaasadeed shacabka Soomaaliyeed in la ilaaliyo amnigooda xasiloonidooda xuquuqdooda insaanka guud ahaan marka ciidamada amniga ee deegaankana waa inay noqdaan ciidamo u adeegaya danta shacabka oo aan ahayn ciidamo shacabka lagu cabiriyo taas ayadana waxay ka mid tahay xuquuqda siyaasadeed shacabka Soomaaliyeed waa inay saas noqoto ciidamada federaalkuna waa inay ilaaliyaan xuquuqda shacabka Soomaaliyeed Soomaaliduna waa inay ku yeelato kaalinta ay ku leedahay si ay u noqdo ciidanka u noqdo ciidan dadka u dhaxeeya oo san ahayn ciidan qoomiyada gaar ay leeyihiin waxay kaloo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen xoogga saari doonta oo ka howlgeli doontaa sidii bulshada Soomaaliyeed oo dib badan la kala dhex dhigay dib u heshiisiin loogu abuuri lahaa oo halkaas ay u bogsan lahaayeen halkaan ay u noqon lahayd furo xaqiijiye amnigooda iyo xasiloonida iyo horumarkooda taasoo ku imaan doonta muxuu ahaa dariiq dib u heshiisiin walaaltinimo iyo boogihii oo la dhayo oo colaadii hore meesha ay ka baxdo isla markaana taa macnaheedu maaha in la iloobi doono dhibkii dadka loo geystay waa in la diiwaan geliyo waa inay noqoto arrin aan dib loogu noqon
waxay noqonaysaa arrin la diiwaan geliyo aan la iloobin la xasuusto taariikhda dadkan ay gasho dhibaatada shacabkeena loo geystay ciddii u geysatayna waxaa weeyaan inay ka garawdo oo mar dambe aanay mar labaad usoo noqon in shacab Soomaali sida loo xasuuqo dib u heshiisiinta daryeelka iyo daryeelka shacabkeenu waxaa ku dhacay dhibaatooyin badan dhibaatooyin uu keenay dagaaladii meesha ka dhacay kaasoo keenay barakac dil xabsi dhac iyo muxuu ahaa iyadoo dhibaato badan dadka loo geystay marka waxa ay jabhadu ka qaybgeli doontaa dawladana ku boorinaysaa gacan ka geysan doontaa si shacabkaas dhibaatada loo geystay dhammaan dagaaladaas meesha rabaan dagaalada salka ku hayaan sida agoontoodii dadkii la dhacay dadkii la naafeeyay muxuu ahaa gabdhihii la farxumeeyay waxaa soo idil sida ay muxuu ahaa xuquuqdooda u helayeen magdhowna u helayeen noloshoodana dib loogu soo celin lahaa si ay bulshada uga mid noqdaan ayagoo maaragtay muxuu ahaa xuquuqdooda si buuxda u helayeen dhibabkaas adduunkooda ka dhacaan waxaan ugu baaqaynaa dowladda Itoobiya iyo guud ahaan muxuu ahaa hay'adaha caalamkuna inay gacan ka geystaan dib u dejinta shacabkan barakaca qaxa cunaqabataynta intaasoo dhibaatada ku dhacday waxaa kaloo oo muxuu ahaa laga maarmaana inuu noqdo nidaamkaas nidaam transparent oo ay ka qayb galaan dhammaan muxuu ahaa xisbiyada siyaasiga dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiya iyo hay'adaha caalamka isla markaana waxaan ugu baaqaynaa dowladda Itoobiya iyo maamulka deegaanka inuu aqoonsado dalka Soomaalida special status inuu siiyo dib u dhac muddo badan hayay iyo dagaalada dhibaatada geysteen in marka si gooni ah special fund loo sameeyo dhaqaale gooni ah oo dadkan lagu hormariyo oo nolosha dadka kale ay ula silmaan maxaa geeska Afrika iyo guud ahaan Itoobiyaba marka arrinta ayadana joxo way ka howlgeli doontaa si buuxda ayayna wax uga qaban doontaa kaalinteeda arrimaha dhaqaalaha dalka Soomaaliyeed wuxuu noqday dal dhaqaalihiisu naafoobay oo dib u dhacay marka inta waxaa dheer dagaalada ka sugoo dhibaatada u keeneen yani systemic yani si qorsheysan oo nidaamsan ay dadka Soomaalida loo marginalize garay dhaqaalahoodan uusan uga mid ahayn dhaqaalaha Itoobiya hadda federaalkeeda ama la isku yiraahdo waxa Itoobiya waxaa hanaanka dhaqaalaha ko number 1 dadka Soomaalida waa inay si xor ah u dhaqaalahooda u maamushaan khayraadkooda dhaqaalahooda ganacsigooda muxuu ahaa iyo muxuu ahaa arrimaha la xiriira kaabayaasha dhaqaalahooda waa inay xor u yihiin oo si xor u maamushaan oo shuruucda yani caburinaysa kulli laga qaado sidoo kale hanaanka dhaqaalaha ee adsaba kaliya ku urursan waa in loo soo dedejiyo deegaanka Soomaalida waa inay dadka Soomaalida awood u yeeshaan inay bangiyo furan karaan inay muxuu ahaa hay'adaha dhaqaalaha ay muxuu ahaa dalkan ka shaqeyn karaan si madax bannaan oo dadka Soomaalida gacantooda ay ku hayn karaan inay xaq u yeeshaan isgaarsiinta muxuu ahaa shidaalka muxuu diyaaradaha muxuu ahaa korontada iyo muxuu adeegayaasha bulshadooda inay dalkooda si madax bannaan ay u shaqaysan karaan oo ganacsatadooda la privatise garay xaq u yeeshaan in ayagu ka qayb geli karaan oo gacantooda ay gacanta ku dhigaan yani waxaad moodaa in dadka Soomaalida si gooni uga takooreen Itoobiya oo xuquuqdooda aanay u dhameyn oo si gooni ah maartay waxyaabo badan oo caburinaya u jiraan marka maamulka deegaanka iyadoo kaashanaysa yani in la go'aamiyo in dalkan uu xaq u yeelan karo in maalgelin shay la sameyn karo in marka ay privatization sameyn karaan dadkan ay hantida iyo dhaqaalaha dalka ay gacanta shacabka Soomaalida ku soo noqon karto oo in marti ku noqon maadaama la yiri federaal baa leeyahay federaalka in si buuxda looga mid ahaaday in laga mid ahayn wax u dhaxeeya ma laha marka waa in xuquuqda buuxda shacabka Soomaaliyeed helaan dhaqaaluhuna waa meesha asaasiga ah ee khilaafka yareyn kara markii shacabku ay dhaqaalahooda u madax bannaan yihiin noloshooda u madax bannaan yihiin siyaasadooda u madax bannaan yihiin amniguna wuu sugmayaa marka taas jabhadu way u hawlgeli doontaa waxay noqon doontaa campaignka ay geli doonto iyo wada hadalka si u dhiman ay dowladda Itoobiya sidoo kale nidaamka canshuuraha ummadan ee shacabka Soomaaliyeed marka inuu noqdo nidaam dadka u daneynaya oo canshuuraha inta xaq ku leeyihiin iyo in canshuur gooni qaadan karto maamulka deegaanka uu dalkiisa ku horumarinayo ayadana waxyaabaha campaign garantooda ka mid tahay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan weeye si adeegyada ay u baahan yihiin oo helaan waa inay canshuurta lagu leeyahay bixiyaan si loogu adeego amniga wadooyinka waxbarashada waxaasoo idil ay u yeelato sidoo kale waxa weeyaan jabhadu waxay ka howlgeli doontaa mideynta ummadda Soomaaliyeed wax walba ummadda Soomaaliyeed khilaaf ku abuuraya way la dagaalami doontaa waxayna abuuri doontaa jawi ummadda Soomaaliyeed ay hal ku noqoto oo midnimo ummadda Soomaaliyeed lagu ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed way siman tahay walaalo weeye hal dambe leedahay
waxay abuuri doontaa ajenda qorshaysan oo qaran sidii ummaddan loo samayn lahaa beelaha kala duwan odayaasha duqeytida aqoonyahanka Soomaaliyeed dhammaan barnaamijyo dadka Soomaaliyeed lagu midayn lahaana way bilaabi doontaa sidoo kale waxay muxuu jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ay ka howlgali doontaa arrimaha bulshada dadka Soomaaliyeed waxbarashadooda waa inay noqoto mid dantooda u adeegaysa diintooda dhaqankooda iyo danahooda ku salaysan marka waxbarashada dalka laga ka soconaysana waa inay noqoto ka soko waxa ay dadyo kala wadaagto wax u gaar ah ay dadku ay leeyihiin taariikhdoodii iyo sharaftoodii iyo dhaqankoodii diintooda difaacaya sidoo kale waxa weeye adeegayaasha bulshada ee dalka ka dhacaya waa inay noqdaan mid u daneynaya dadka khaasatan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay xoogga saari doontaa dadka Soomaaliyeed 70% reer guuraa ah beeraley ah in adeegyada loo sameeyay ay ku saleysnaadaan in magaalooyinka kaliya aan noqonay dadka reer guuraaga xuquuqdooda la ilaaliyo oo ay helaan adeegga xaq ugu leeyihiin maadaama dadka ay u badan yihiin oo ay ka qayb galaan siyaasadda iyo maamulka dalka nolosha iyo noqdaan yani barnaamijyo u gaar ah loo diyaariyo oo yani awoodda iyo dhaqaalaha dalku ku koobnaan magaalooyinka iyo caasimadaha oo ay u daadegtay ilaa tuulada sidoo kale jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay xoogga saari doontaa in cilaaqaad fiican ay dadka Soomaaliyeed yeeshaan darisyadooda deegaanada Soomaaliyeed wuxuu leeyahay xad aad u ballaaran oo ay degan yihiin ay wadaagaan dadyo kala duwan dad walaalada Soomaaliya oo xagga bariga ka xiga muxuu ahaa qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Cafarta jabhadda wadaniga xoreynta muxuu ahaa oo ayna waxay aaminsan tahay inaan xal dagaal uusan xal u lahayn ummadahaas يعني سي walaaltinimo ah oo nabadgelyo ah wixii khilaaf in lagu xalliyo dadka xadadka degan barnaamijyo isku xireeya oo nololeed oo dantooda midaynaya in la abuuro mana ka qayb gali doonto inay yani ka qayb gasho in yani inay colaad yani wax colaad sii kordhinaya laakiin waxay ka howlgali doontaa inay nabadgelyo dadka walaalada Oromada kuwa Soomaalida kuwa noolaadaan dadka Cafarta iyo dadka Soomaaliyeed nabadgelyo kuwa noolaadaan walaalahayga Soomaaliyeed ee muxuu xadadka aan leenahay ee Soomaaliya ku noolna maba jiraysaba waayo dad wada dhashay way sidii ay u walaaloobi lahayn dhanahooda iyo noloshooda ay u midayn lahayn maadaama xiriir ganacsi iyo dhalasho iyo walaaltinimo naga dhaxayso taasna way ka howlgali doonaan يعني wax umada khilaaf ku abuuray marna jabhadu kama qayb gali doonto mana dhiiri gelinayso sidoo kale dawladda Itoobiya ee federaalka iyo maamulka deegaanka Soomaaliyeed waxay ku boorinaysaa in muhiimadda ay leedahay nabadgelyada xadadka inay saaraan oo dadka walaalaha si loo midayn lahaa oo ay joojiyaan yani in dad hubaysan ay raayaan waxa way dawladnimo meesha ka jirmay muujinaysaa marka dawladuhu waa inay muujiyaan xilkooda dawladnimo amniga ah oo dadkaas dad hubaysan oo isleeyay aanay dhicin ciidan federaal jirana waa inuu ciidanka federaalku uusan aqbalin yani Malaysia hubaysan inay isleeyso oo arintaas ayada dawladnimo inay jirin bay muujinaysaa taasna waxay ku boorinaysaa dawladda federaalka iyo dawladda deegaankuba xilka ay leeyihiin iska saaraan ama ha noqdo maamulka Oromada maamulka Soomaalida ama dawladda federaalka Itoobiya guud ahaan sidoo kale aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo oqaashi iyo odayaashuna inay nabadda ka shaqeeyaan oo in u ololeyn colaad iyo dagaal dhinaca kaleeto khilaafaad ayaa ka aloosmay dalka Soomaalida oo tuulooyin been ah oo qiimo lahayn dhulkii daaqaynka ummadda Soomaaliyeed xoolahooda ay ku daaqsan jireen inta tuulooyin been laga abuuray si la isugu diro taasoo abuurtay in colaado aan joogsanayn ay socdaan dalka Soomaaliyeed dhammaan jabhadda wadaniga xoreynta oo aan waxay ka soo horjeedaa tuulooyinka beenbeenta oo qiimahan ku fadhiin oo dadkeena la isku leeyahay dadka dad walaalo ah way wada deganaayeen 100 sano dhulkuna uu ka dhaxeeyay dhulkana lama kala laha marka ma dhiiri gelinayso wayna ka qayb gali doontaa xalinta khilaafaadkaas xoogana way saari doontaa in waxyaabaha loogu talagalay shacabka in la isugu diro in la baabi'iyo oo dadku deegaanadooda ay wada degi jireen si walaalnimo ay ugu wada noolaadaan siyaasaduna ayna noqon siyaasad muxuu ahaa dadka dhowrkii shaqamadii loo geeyay la isugu diro tuulada halka qolo hebel baa la yiraahdo waxyaabaha qaabkii loo xalin lahaana siyaasadeeda saldhig buu noqon doonaa sidoo kale jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay xoogga saari doontaa xuquuqda shacabka ee asaasiga sida xuquuqda haweenka Soomaaliyeed waa saldhigga mujtamaca way waa meesha ummadda horumarkeeda iyo jiritaankeeda lagu sugo way dhibaatooyin ballaaran baa soo gaara oo uga yimaada ama xagga muxuu hay'adaha dawliga ama uga yimaada bulshada gudaheeda marka xuquuqda haweenka waxay u noqon doontaa asaas cornerstone haweenka Soomaaliyeed waa inay si buuxda xuquuqdooda u helaan dhinac walba ama mid bulshada noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto jabhaduna xoog weyn bay saari doontaa sidoo kale jabhadu waxay xoogga saari doontaa
bulshooyinka ama laga badan yahay ama dhibaatada gaarka ah haysta sidii bulshada xuquuqdooda loo ilaalin lahaa isla markaana xuquuq si buuxda loo siin lahaa sidoo kale waxa weeye dhalinta iyo muxuu ahaa caruurta in ayaguna ay helaan xuquuqda ay lahaayeen si gooni ah barnaamijyo u qaabilsan oo noloshooda iyo horumarkooda ka shaqeeya ugu dambeyn jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya waxay xoogga saari doontaa in dalkan uu helo inuu hormaro nabad ka dhalato xasilooni ka dhalato dagaalka uu ka dhamaado dadka la walaaleeyo shucuubta Itoobiya oo kalena inay la kaashato sidii muxuu ahaa u abuurmi lahaa jawi dadka geeska Afrika ku nool walaalo ay noqdaan waxay ka qayb gali doontaa siyaasadda geeska Afrika dawladda Soomaalida shacabka Soomaaliyeed ee khilaafaadku ka jiraanna gacan weyn bay ka geysan doontaa si walaalayn lahayd sidoo kale waxay gacan weyn waxay ka geysan doontaa in yani ummadda Soomaaliyeed kaalinta ay ku lahayd adduunka iyo bulshada caalamka sharafta ay lahayd u soo noqdo oo kaalinta kaga jiraan ay wax weyn muxuu ahaa ka gasho guud ahaan markaan soo koobo waxaan halka kusoo koobayaa press release-ka jabhaddu ay soo jeedisay marka waxaan u ogolaanaya in wariyaashu ay su-aalaha ay qabaan weydiiyaan hadba ilaa yidhaahdo